رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية فدرالka Itoobiya Ato Hailemaryam Desalegn ayaa ka tacsiiyay dadkii Soomaalida ahaa ee xasuuq wadareedka loogu geystay deegaanka Oromada gaar ahaan qabalaha Gaadula ee degmada Gaarulabo ee galbeedka Hararge warbixin muurtaas ku saabsan farax baday ayaa inoo faafaynaya رئيس الوزراء Hailemaryam Desalegn ayaa ka tacsiiyay dadkii Soomaalida ahaa ee lagu xasuuqay deegaanka Oromada gaar ahaan qabalaha Gaadula ee degmada Gaarulabo ee galbeedka Hararge 6 bishan Taasaas 2010 taariikheedka dalkeena Itoobiya ama 15 bishan December 2017 wuxuuna ra'iisul wasaaruhu sheegay in dadkan la xasuuqay ay ku sugnaayeen xiriyaha booliska Oromada si ay magangalyo ugu helaan naftooda isagoo ra'iisul wasaaruhu cadeeyay in isla xiriyihii booliska xasuuq wadareed arxan darraha loogu geystay sidoo kale ra'iisul wasaare Hailemaryam Desalegn ayaa sheegay in xasuuqan uu ku soo aaday xilli dhibaatooyinkii ka dhaxdhacay shacabka labada deegaan xal nabadgelyo oo waara looga gudbay isla markaana labada dawlad deegaan iyo xukuumadda federaalka hiba ay shaqooyin muhiim ah ka qabteen nabadeynta labada shacabiyad oo xaaladdu halka marayso ayaa waxa dhacday in dadkii Soomaalida ahaa ee ku noolaa gudaha Oromada kuna sugnaa xiriyaha booliska deegaanka Oromiya la xasuuqay በቅርቡ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት የሚያውኩ ችግሮች ታይተዋል። በተከሰቱት ግጭቶች ምክንያት የሰው ህይወት ጠፍቷል። ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። የህዝብ ሀብትና ንብረትም ወድመዋል። goobo badan oo dalkeena kamid ah ayay dhibaatooyin isku dhacyo ka dhasheen waxaana isku dhacdeen khatar galiyeen nabadgelyada iyo xasiloonida dalkeena dhibaatooyinkan dad badan ayaa ku dhintay shacab badanna way ku barakaceen hanti iyo maal badanna way ku lumeen gaar ahaan xuduudaha labada dawlad deegaan ee Oromiya iyo Soomaalida inay isku dhacyo ka jireen waan ogsoonahay haddaba dhacdadan ayaa ku soo beegantay xilli ay dawladda federaalka iyo xukuumadaha labada dawlad deegaan ay hawlo muhiim ah ka qabteen isla markaana dadaal xooggan la galiyay sidii loogu gudbi lahaa xal waara oo nabadeed hase yeeshee dhawaan ayaa mar labaad dhibaatada dib loo aloosay waxayna dhibaatadana sababtay dhimasho dhaawac iyadoo hanti badanna ku burburtay haddaba ra'iisul wasaare Hailemaryam oo tacsiyadeynaya eheladii iyo qaraabadii dadkii Soomaalida ahaa ee la xasuuqay ayaa wuxuu yiri በምዕራብ ሐረርጌ በድሮሎቢ ወረዳ በጋድሌ ቀበሌ ለደህንነታቸው ሲባል በአካባቢው በአቅራቢያ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ተጠልለው በነበሩ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጆች የጅምላ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። በራሴና በፌደራል መንግስትም በንጹሃን ዜጎች ላይ በደረሰው አደጋ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለተጎጂዎች ቤተሰቦች ዘመድ አዝማድና ለመላው የሀገራችን ህዝቦች መጽናናትን እመኛለሁ። መንግስት ድርጊቱን ያወገዘ ጉዳዩን የሚያጣራ ግብረ ኃይል ያቋቋመ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀም አስፈላጊውን እርምጃ የሚወሰድ ሲሆን የማጣራቱ ሂደት ውጤት ለህዝቡ በዝርዝር እንደሚገለጽ ከወዲሁ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። በተለይም ግጭቱ በሚከሰትባቸው የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ነዋሪ የሆኑ ወንድማማቾች ህዝቦች ለሰላምና ለወንድማማችነት ቅድሚያ በመስጠትና ለግጭት ጥሪዎች ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት በጋራ በመንቀሳቀስ ሰላማቸውን እንዲያስከብሩ በኢፌዴሪ መንግስት ስም ጥሪዬን ያቀርብኩ የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታት በቅንጅት ችግሩን ለመቅረፍ በመረባረብ ላይ እንገኛለን። በድጋሚ በተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠሙ ግጭቶች ሳቢያ በዜጎቻችን ላይ በደረሰው የሞት አደጋ የተሰማኝን መራር ሐዘን የገለጽኩ ለመላ ቤተሰቦቻቸው ዘመድ አዝማዶቻቸውና ለሀገራችን ህዝቦች መጽናናትን እመኛለሁ። anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawladda federaalka waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa guud ahaanba shacabka reer Itoobiya gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii dadkii Soomaalida ahaa ee xasuuq wadareedka lagu geystay xiriyaha booliska ee deegaanka Oromada khaasatan qabalaha Gaadula ee degmada Gaarulabo ee galbeedka Hararge waxaan idin cadeynayaa in iyadoo ay dawladdu dhacdadan cambaaraynayso aan haddana arrintan u aasaasnay guddi xoog leh oo dhacdadan soo xaqiijiya kadib markay soo xaqiijiyaanna waxaan shacabka u shaacin doonaa natiijada dhacdadan waxaana mar labaad idin xaqiijinayaa in marka natiijada la soo saaro aan tallaabo sharci ah ka qaadi doono dadkii falkan foosha xun geystay intaa kadib ra'iisul wasaare Hailemaryam Desalegn ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah iyo Oromada ay yihiin dad walaalo ah oo qarniyo wada noolaa isla markaana loo baahan yahay sidii ay u soo ceshan lahaayeen nabad ku wada noolaanshihii soo jiraanka ah ee labada dhinac dhanka kale madaxweynaha dawlad deegaanka Oromada mudane Lama Magarsa oo ka hadlay xasuuqa loo geystay dadka Soomaalida ah ee ku dhaxnool deegaanka Oromada ayaa sheegay namoota Soomaalida aan irratti hala sukkaneessa ta'een wantoonni raawwataman xiqqoo gadhee waan ta'aniif
kallattii kamiiniyyuu uummata keenya uummata Oromoo kan bakka bu'u miti haalaan nu gaddisiisee jira. Ammas irra deddeebinee kan uummata keenyaaf dhaamsi nuti kun kallattii kamiiniyyuu uummata nu keessa jiraatu uummata Somaalees haa ta'u uummata kaan irratti kallattii kamiiniyyuu miidhaan qaqqabuun yookiin miidhaa qaqqabsiisuudhaaf aggaammiin ta'u hundi nuuf faayidaa hin qabu. dadka Soomaalida ah ee falalka xunxun loo geystay dadka u geystay waa dad kooban oo liita oo aan matelin arrinta ay sameeyeen waa mid aan aad uga xunnahay waxaan tacsi u dirayaa cid walba ay taabatay arrintani dadkii falkan geystana sharciga ayaa la horkeeni doonaa. haddaba inkastoo warbixinta ofishaalka ah ee xasuuqan ay soo saari doonto dowladda federaalka ah ayaa si aan u helno xog dheeraad ah waxaan arrinta ka wareysanay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo tan iyo inta ay maqashay dhacdadan foosh xun aan hal daqiiqada ka fadhiisanay sidii loo gurman lahaa dadkaas loona badbaadin lahaa shacabka intii hadhay isla markaana xukuumadda federaalka ah si istaba joog ah uga codsanayay in xaqiiqada xasuuqa banaanka la soo dhigo. waxaana xogta ay xukuumadda deegaanku ay ka haysaa arrintan aan wax ka weydiinay madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdixakiin Cigaal iyo wasiirka xiriirka arrimaha dowladda mudane Idriis Ismaaciil oo noo sheegay inay xukuumadda deegaanku maqashay dhacdada 6 bishan Taasaas 2010 tiris taariikheedka dalkeena Itoobiya isla markiina is xog weedaarsadeen cid kastoo ay khusuusay gaar ahaan hay'adaha amniga ee heer federaal kadibna ciidamadii ugu dhawaa goobtaas oo u jiray masaafo qiyaas ahaan gaaraysa 80 kilomitir inay si degdeg ah ugu dhaqaaqeen siday u badbaadin lahaayeen dadkaas iyadoo ciidanku filaya inay qiyaas ahaan goobtaas u gaadhaan 2 saac ay ka hor yimaadeen caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin jidgooyo dagaalo iyo in guud ahaanba wadadii la gooyo taasoo kaliftay ciidanka inay lugeeyaan kadibna ciidanka ayaa waxay lug ku galeen qabalaha Haroreyto halkaas oo ay ku badbaadiyeen 53 qof oo masaajidka magaaladaas nafta kula cararay kuwaas oo u sheegay in 6 qof oo kamid ah aysan warahayn meel la geeyay ciidanka ayaana si uu badbaadiyay 53 qof sii kaxeeyay wuxuuna ciidanku goobta xasuuqu ka dhacay gaadhay 1 AM ama saqdi dhexe habeenimo iyadoo ciidanku subaxdii halkaas ka helay wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo u sheegay inuu kamid ahaa 63 qof oo magangalyo ugu sugnaa xiriyaha booliska ee Oromiya balse uu ka baxsaday markii dadkii xerada kula jiray laynta lagu bilaabay oo uu filayo in guud ahaanba dadkaas la laayay. haddaba ciidanka qaranka oo ka duulaya xogtaas ay heleen ayaa waxay bilaabeen sidii ay u soo celin lahaayeen dadkii fiigay iyo meesha la geeyay meedadka dadkii la laayay nasiib wanaagsan xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidanka qaranka ee goobtaas ku sugnaa iyo shacabkii ayaa waxay ku guuleysay inay helaan godad lagu uus xawaalay dadkii la xasuuqay si aysan cidna u ogaanin. sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa noo cadeeyay in 7 bishan Taasaas 2010 tiris taariikheedka dalkeena Itoobiya ay goobtii tageen wafdi ka socda dowladda federaalka oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Siraaj Fageesa xirilaaliyaha guud ee qaranka mudane Getachew Ambaye wasiirka wasaaradda arrimaha federaalka iyo horumarinta xoolo dhaqatada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Kabadhe Chane komishinka xuquuqul insaanka dalka Dr. Adisu iyo mudane Burhanu oo ka socda xarunta dhexe ee xisbiga OBDO oo watay diyaaradaha qumaatiga u kaca isla galabnimadii maalintaasna way noqdeen kadibna dowladda federaalka ah ayaa waxay go'aamisay in dib loo soo qufo xabaalihii si loo ogaado xaqiiqada dhabta ah ee dadkii la xasuuqay waxayna mas'uuliyiintu intaas ku dareen in 8 bishan Taasaas ay dowladda federaalka ah u dirtay goobaha xasuuqu ka dhacay guddi farsamo oo ka kooban neersi dhakhaatiir iyo warbaahinta dalka oo watay 2 diyaaradood kuwaasoo bilaabay inay dib u qadaan godkii meedadka lagu qariyay. haddaba si ay xogta ku hayso xukuumadda deegaanka ay noo sheegeen madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdixakiin Cigaal iyo wasiirka xiriirka arrimaha dowladda mudane Idriis Ismaaciil ayaa waxay guddiga iyo ciidanku soo saareen ilaa hadda meedad gaadhaya 48 qof iyagoo inta raaciyay inay nolol ku heleen 4 qof oo dhaawac ah welina uu socdo qoditaanka 10kii meed ee hadhay. sidoo kale waxay mas'uuliyiintu noo sheegeen in xogaha ka soo gaadhay goobihii xasuuqu ka dhacay ay sheegayaan in qabalaha Huluqo ee degmada Daarulaba lagu dilay 4 qof qabalaha Tamsanana lagu dilay 24 qof meesha qabalaha Qorrati lagu dilay 18 qof. dhanka kale mas'uuliyiinta ayaa xusay in ciidanka qaranku ay xasuuq dad tiro badan ka badbaadiyeen goobo kala duwan oo ka mid ah qabalaha Soror oo ay ku badbaadiyeen 100 qof degmada Daarulabana ay ku badbaadiyeen 300 qof meesha qabalaha Wataadaran ay ku badbaadiyeen 300 qof. waxayna mas'uuliyiinta xukuumadda deegaanku sheegeen in dhacdadan ay u cadeynayso dowladda federaalka ah iyo shacabka Itoobiya
in propagandada iyo eedamihii lagu sheegayay Soomaalida ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo aan sal iyo raad toona lahayn gaar ahaan goobta xasuuqu ka dhacay oo aanu dhaweyn wax hadana aan la lahayn deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah bartamaha Oromiya ayaa waxay mas'uuliyiintu ku tilmaameen wax lala yaabo in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Oromada oo warramay VOA-da ay sheegeen in liyu booliska Soomaalidu soo weerareen sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa ku tilmaamay inay tahay wax laga naxo in intii dad la laayo haddana la uusduugo iyagoo intaa ku daray in sababta ka dambaysa xasuuqan ay tahay dadaalo lagu burburinayo nidaamka federaalismka dastuurka dalka iyo nabad ku wada noolaanshaha qowmiyadaha Itoobiya waxayna taasi caddayn u tahay in intii dad la laayo oo la uusduugo haddana been laga sheego ugu dambayna dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay taasi tiiraanya leh u dirayaan dhammaan eheladii iyo qaraabadii dadkii Soomaalida ahaa ee dhawaan lagu xasuuqay deegaanka Oromada iyo guud ahaanba shacabka dalka iyo kan deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo xukuumaddu sheegtay inay caawin doonto isla markaana uga mahadcelinayso dawladda federaalka ah iyo hay'adaha amniga dalka dadaalada ay ugu jiraan badbaadinta dadka Soomaalida ah ee ku dhex nool deegaanka Oromada gabagabadiina waxay xukuumadda deegaanku sheegtay in shacabka Soomaalida iyo Oromada ay yihiin dad qarniyo nabad ku soo wada noolaa dhaqan iyo diin wadaaga iyo inaysan dhacdadan matelin labada shacab dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay hadhiyo habeenba ka shaqayn doonto nabadgelyada labada shacab ee walaalaha ah